حق السياسة جيبوتي مدن دانيار كذا لحسن وحال مودا أيانتي عالن كلا قاطي إن عالن كافدوب لجوي حيو خلده وين لقلي حاضو مالنا سا خلده دايني هذا النص كوبي waxaan filayaa khaladada la galay waxay ahayd jacayl loo qabay calanka oo horta gacanta loo dhigo awgeed in ay maxaan ku dhahay dadka siyaasiyiinta waqtiga taagneed qaar ka faa'iideysteen marka khaladka haddii aan meel gaaban ka soo taabto la galay ee u weynaa wuxuu ahaa dowladdii la dhisay oo ku dhisan maxaan ku dhahay qabka tii la bedelayay ee Faransiiska dowladdii xasan guleed ee horreysay iyo kuwa ka dambeeyay laami kuwa ka jiraaba waxay u samaysan yihiin ay u qaybisan tahay dawladdu iyo kuraasidu iyo wax walba maxaan ku dhahay sidii deetii Faransiisku inoo sameeyay ee calcarifka iyo wixii ka horreeyay in Soomaalida waxa jira qaran iyo qabiil meel ma wada joogi karayaan kolka siyaasadda Djibouti la eego ma la oran karayaa jamhuuriyad daba iyo siyaasad qabiil ku dhisan inay wada joogi meel quraata wada joogi karayaan meel gaaban haddaan su'aasha ka taabto waa may weeyaan marka haddaan ka bixiyo waxoogaa tafaasiila maxaan ku dhahay dowladda imiga ka dhisan waddanku waxay u samaysan tahay hab aan maxaan ku dhahay qaran baad sheegayay maxaan ku dhahay xitaa qabiilna ahayn ya waayo haddii la odhan lahaa qabiil bay dadkaasi matalaan dee qabiilka la wadiin lahaa oo dooran lahaa dadka maxaan ku dhahay iyaga matalaya marka imiga waxaanu aragnaa liis maxaan ku dhahay nin intuu habeen madow samaysto maxaan ku dhahay dadka lasoo hordhigo odhaa kaasan haynaa iyo dee waxba markaa dee kaa iyo waxba markaa meesha ma jirto wax la odhan karo waa maxaan ku dhahay qabiil walaa waa qaran walaa waa midna maaha mudane xasan nin waddanka Faransiiska u dhashay qeynay diimo bada mar ilaa 30 sano horteed baa l'Afrique est mal partie prime minister ki Zimbabwe ee cadda intuu kolku powerka shooyinka tageen buuri madowga laguma talagin buuri inay dad xukumaan kolka Afrika ma meel madowba oo horumar lahayn oo dimuqraadi lahayn Djibouti kolka laga dhaqaaqo ma tul lamidaba umaleyn maayo inay ku saleysan tahay mashaakilka Afrika awood la'aan iyo maxaan ku dhahay karti la'aan ee waxay ku saleysan tahay afduub dadka qaar ay sameeyeen iyo gacan saar la quwadaha shisheeye oo iyagu danahooga dee waxba ka soo hormarinaya ayaa sameystay meel walba dhigtay nin yar oo maxaan ku dhahay iyaga u adeega isna la yiri waddanka iska baaro anaga ku ilaalinayna wixii aad garan weydeen noo soo sheeg cishada ka baxdo qadkan ku jaxnayna dee mataqaana mid kalma dhibina marka mashaakilku maaha mid Afrika yaale waxa weeyaan Afrika u yaala dabcan laakiin ma hadda wax la kari waayay wax la garan waayay midna maaha dastuurka sharciga u dhigay waxa weeyaan madaxweynaha Djibouti inuu laba jeer joogo mar saddexaad ku ceeshin kolka mudane Ismaaciil Umar Geelay inuu ku laamo doonaya shaqo diyaar ma u yahay hadduu diyaar u yahay sidee looga horjoogsan kari lahaa waxa la nagu yiri shacabka iyaabal taagan oo soo banaan baxay oo le dastuurka quraan ma hay hal bedelo dastuurka oo hal laga dhigo intuu doonay ku soo noqon karo madaxweynuhu wax shacab la yiraahdo oo maxaan ku dhahay waxa ka dambeeya ma jirto shacabku waa anaga iyo ay shacabku anagu ma shacab ahayn waxa la yiraahdo shacab ma jiro oo waxa ka dambeeya ee waxa weeyaan waxa dhowr nin oo maxaan ku dhahay nacamlayaala iyo ninka meesha maxaan ku dhahay dee isku ilooyay baadida isku iloobay ayaa sameystay sheekadaasi shacabkana ma taqaanay dhowr dee nacamla laga waayo oo dee meelaha television ka soo baxa haddaad maanta Ismaaciil garab joogto saacad anaa joogno oo taliyay soo dhawaatay maxaad kula talin lahayd kolka la eego maadaama dastuurku cushan doono waxaan kula talin lahaa horta dad walaal aynu nahay oo isku wadana oo hadii goran in ma taqaanay ilooba maaha maxaan ku dhahay wadaninimada iyo sokeeynimada iyo dadku ma taqaanay inta shay inuu isku nahay ma malin kartid hadii inuu dad reer Djibouti ciidan doonana sheeganay marka inagoo dhowrana waxaa soo dhan horta aflagaadada iyo ma taqaanay hadallada xun ee dalabta la iska ilaaliya marka hadii ay suurta gasho waxaan ku odhan lahaa walaalkay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelay hadii karti iyo karaamo aad lahayd waqtigeegii waa lagu siiyay Ismaaciil walaal marka wixii aad qaban karaysay ama ku hirgalaan ma inay ku hirgalin sababtuna waxa doonto ahaatee waad maxaan ku dhahay dee waqti lagu miiska lagu soo dhigi karo waa lagu siiyay ilaahayna uu ku siiyay mudana way ma taqaanay dee ku garbash marka maanta waxay ku haray waxaan filayaa inay tahay xil iyo ceeb haddii aad ma taqaanay marka dee nin dhiga nugul oo ummadiisa jecel oo dalkiisa jecel tahay sida dee ma taqaanay waayadii hore ee maxaan ku dhahay dadku oran jireen waxaan leeyahay walaal maanta
iskaga wareeg xilka iska wareeji xilku waa eed weeyi mataqaanaaye iska wareejiyo cid kale ha mataqaanaaye dee oo ummadda ha u dhibato isbedel dhab ayaa la rabaa ay reer Djibouti inay doonaan baa la rabaa kolka adigu sidee u macnaysan leed isbedelka isbedel ayaa la rabaa sida runta ah waa muhiim waayo isbedelkii la sameeyey 1977 haddii lagu soo noqdo isbedel maaha haddii lagu soo noqdo kii ka dambeeyey 1992 dastuurkii la sameeyey ku salaysan iyo wixii ka dambeysay la dhisay dabadeed ilaa Ismaaciil iyadna isbedel maaha waayo sababtu waxa weeye waxaasoo dhan waxaan isbedel ahayn wixii mataqaanay qof un baa la bedelay iyo dhowr qof meesha mataqaanay wajhi cadaa un baa wajhi madow lagu bedelay laakiin wixii maxaan ku lahaay waxaan keenay khaladada maxaan ku lahaay salka u ahaa oo ah cadaalad darro waddanka ka taagan lama saxin marka isbedel haddii la doonayo wixii dhalay maxaan ku lahaay alcaarif dhalay guuleed dhalay maxaan ku lahaay geelle haddii mid kale lagu bedelo anigana ha ahaatee waxa weeyaan waa isma dhaantiyo dhagaaya xun wax la bedelay ma jirto marka waxa weeyaan isbedel haddii la rabo in waxaa ka duwan ummaddu dee isku geysto karti iyo karaamo way leedahay la isku geysto oo ay macaarid iyo maxaafidba la isdhegeystoon karaamada la iska qaadin oo markaa isbedel ayaha dambe ee waddanka dhisa dee meel la dhigo ayaa loo baahan yahay waad mahadsantahay mudane xasan haddaba waa gebagabadii baan joognaa baaq maxaad u sheegi lahayd dadka reer Djibouti dibadda bahanba joogaan ama waddankiiba ha joogaan maxaad baaq eri u dambaysa u sheegi lahayd caawada horta waxaan u sheegi lahaa baaq muddo reer Djibouti soo horeysa jamcan guud ahaan baaq guud oon leeyahay waqtigii dowladda RBB inuu mataqaanay wixii karaamo iyo karti lahayn san hore u soo sheegay way maxaan ku lahaay wayna soo hormariyeen wax maxaan ku lahaay dee meel lagu gaarayna maanta waddanka kooraan kama jiro kooraan haddanu jirina lama heli karo horumar biyihii mataqaanay xidhaadh way xidhaadhadeen biyihii Djibouti oo ceelashii baa wada dhanaanaaday ama waxa mataqaanay contaminate waxa yeesheen waxa galay cudurro galay oo dee waa lama cabi karo biyihii marka waddan dee bilaa biyo bilaa kooraan mataqaanay horumarka la sheegay iyo waxaan ku lahaay boorka dooraale ayaan maxaa sameynay waxani wax maxaan ku lahaay waxaan filayaa inaanay wax dee horumar runa ah oo shicibkooda gaaray ahayn horumarka markaa dhowr qof ay gaadheen dee maxaan ku lahaay waxa mataqaanay aan heli karaa horumar ummadda dhan wada gaadhay inuu heli karaa oo maanta waddankeena Hong Kong baa la dhigi karaa Dubai baa la dhigi karaa Dubai inaga ka meel fiican meesha ku yeelaan meel ka fiican oo in ku naalaa inagu marka loo eego adduunka oo nin walba uu dahab ku miisaaman lahaa haddii mataqaanay hesho dadkeygii dee mataqaanay awoodda ay gacanta ku dhigaan marka taasi waa mid reer Djibouti waxaan iyaga ku gubaabinaya inay dee macaaridka garab galaan maadaama kuwii dee muxaafidka ahaa waxay hayeen deenu aragnay oo dee aan haddana dhehla iska tuurayn gaar ahaan mid baan gubaaba siyaada u diraya dumarka reer Djibouti oo maalintii dhawada halkan matalan aynu fadhinay Ottawa ee dadka bari isku yimaadeen inkastoo ay qaar joogaan aan meesha ka hadal dumarka reer Djibouti la'aanteedna horena uma dhicin horumar dibna u dhici mayso haddii aanay sidii horeba waddanka horta wax xoreeyo dumar iyo carruur baa xoreysay runta marka loo sheego runta loo dhabagalaan u jeedaa marka dumarka iyo maxaan ku dhahay dhalinyarta khusuusan labada waxaan leeyahay walaalayaal wadalkiina wadiin baahan yahay walaalayaal waxaan leeyahay halganka nin walooba iyo naag walayba intii maxaan ku dhahay karaankaaya halganku ma aha in rasaas la qaato oo dadka la shishido la caayo maaha waxa weeye halganku waxa weeyaan waa hab dhaqan weeyaan ya halganku waa wax maxaan ku dhahay u baahan deganaan iyo maxaan ku dhahay halganka cusub baan sheegaya waayo waayadii hore dee jabhadihii wax mala tegi jiro midunba askari qoristii baa waddanka qabta xoreyn jiray wixii ma jiraan imika marka halgan maskaxda iyo maxaan ku dhahay maalka iyo muruqa inay galaan oo cilmiyeysan yaan weydiisanaya khusuusan dumarkan aan leeyahay usoo noqda oo dalkiina sida horeba usoo mataqaanay tusteen ummadda reer Djibouti halkiinii baa banaanay kusoo noqdaan leeyahay oo safka hore ka gala halganka waad mahadsantahay